walaashayga yar Zoe hadda waa 30 jir. Aad ayaan u jeclahay inaan noolahayna inay iyada mudnaanteeda leedahay ayaan u maleynayaa. 5 sano ayaan jiray markii ay Zoe dhalatay. Anigana aad ayaan ugu xiiso qabay inaan walaal iga yar ugu dambeyn haysto. Markii ugu horeysay aad ayaan uga maseersanaa sababtoo mar walba waalidkayga iyada ayay la joogeen. Marmarka qaarna uma aan dangeli jirin, xataa waan dhibaateyn jiray. Laakiin arrintaas oo dhan waxay isbedeshay markii aan ogaaday ugu dambeyn walaashayga yar inay lahayd talent aad muhiim u ah. Fadhiga ayaan maalin ku fadhinay anagoo TV-ga daawanaya, kadibna si kadis ay Zoe u tiri, "Aabe, caawa ma imanayo." Waan la yaabay, kadibna waxaan weydiiyey maxaa tiri. Kadibna waxay tiri, "Aabo, caawa guriga ma imanayo," ayay iigu celisay. Arrintaa aad ayaan uga naxay, kadibna waxaan damcay su'aalo kale inaan sii weydiiyo, balse wax kale ma aysan sii sheegin. Xoogaa kadib taleefanka ayaa dhacay, anigana waa ka qabtay. Qofka ila hadlayay markaasi wuxuu ahaa nin booliis ah, isagoo markaasi ii sheegay war muhiim ah. Wuxuuna noo sheegay inuu jiray shil gaari, markaasna hooyaday isbitaalka la geeyay oo dhaawacyo yar soo gaareen, balse aabahay nasiibkaas ma uusan lahayn. Wuxuuna ku dhintay wadada markii loo sii waday isbitaalka. 2 saacadood soo socotay waxay si tartiib ah u socotaa. TV-ga ayaan iska damiyay, dhalada mugdiga ayaanan iska eegayay anigoo shoog ku jira, markaasina wax kale ma dareemeynin. Waxay sheegeen in Zoe ahayd mid saaid u yar oo aysan dareensaneen waxa dhacay, balse waa ay dareensaneen in markaasi aabaheen uu tagay dibna uusan u soo laabanaynin. Sanad kadib dhacdo kale ayaa dhacday. Anigii Zoe waxaan aadnay beerta, wuxuuna ahaa jawigu mid aad u wanaagsan. Zoe kubadda ayay ku ciyaaraysay, kadibna si kadis ah way istaagtay, waxayna gacanteeda ku taagtay geeska beerta. Nin xun ayaa bartaas taagan, ayay igu dhahday, waa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan meesha iskaga dhaqaaqnaa. Markii aan eegay meesha ay gacanta ku taagisay, waxaan arkay inuu taagan yahay nin markaasi qabay funaanad Sibriya, kadibna gacmihiisa waxay ugu jireen jeebabka surwaalkiisa. Wuxuuna u ekaa inuu markaasi qof sugayay. Ninkaasi wax isaga ka mid ah ayaa waxay u ekaayeen wax la yaab leh. Maadaama aan xasuusnaa sanadka hor wixii aabaheen ka sheegtay Zoe, ma aan isweydiin su'aal kale. Gacanteeda ayaan qabtay, kadibna si degdeg ah labadeena gurigeena ayaan aadnay. Subaxdii xigtay xilliga quraacda ayaa waxaan arkay hooyaday oo markaasi joornaalka akhrinayso, kadibna waxa ku qoran ayaan arkay. Beerta ayaa hooyo iyo gabadheeda lagu dilay ilaa ay ka dhinteen. Markaasna waxaa ku sugnaa booliis, kuwaasoo ay wadeen ninkaasna wuxuu ahaa isla ninkii qabay funaanadii Sibriga ahayd. Cabsi ayaan dareemay, shaki kasta oo aan ka qabayna meeshaas ayuu ku baaba'ay. Waxaanan ogaaday walaashay run ahaantii markaasi inay lahayd talent muhiim ah. Maalintaa wixii ka dambeysay walaashay wax walba ay tiraahdo si fiican ayaan u maqli jiray. Maalin maalmaha ka mid ah 6 sano markii ay jirtay Zoe ayay haddana dhacday. Waxaan joognay maqaaxida, kadibna si kadis ah Zoe waxay dhigtay qaandadeedii waxayna tiri, "Awoowe wuu tagay." Isla markiiba soo eegnay anagoo u maleynaynay inay kaftamayso, balse wajigeeda wax dareemo ah kama aysan muuqan. Waxay eegaysay markaasi cuntadeeda iyadoo aamusan. Saacad kadib hooyaday waa la soo wacay, waxaana loo sheegay awoogay inuu markaasi dhintay asagoo hurda. Hooyo aad ayay u naxday, balse way isku diyaarisay warkaas naxdinta leh. Markaas ayay ahayd muddadii ugu dambeysay ee Zoe ay sheegto wixii dhici doona. Sanado badan ayaa ka soo wareegtay, anigana walaashay talentigeeda waan ilaaway. Waxayna gaartay heer aan isdhahay kadis ayay ahayd. Balse isbuucii hore markii anigii saaxiibaday aan waqti wada qaadanaynay ayaa markaasi qof isoo wacay, waxayna ahayd Zoe. Zoe waxay igu dhahday, "Waxaan u baahanahay inaan wax kuu sheego." Waxaan weydiiyey maxay ii sheegaysaa, kadibna waxay igu tiri, "Imaqal, waxaad u baahan tahay inaad hadalkayga maqashid. Waxaan dareemayaa inay wax aad u xun kugu dhici doonaan."
adigii Megan waxaad u baahantihiin sida ugu dhaqsiyaha badan meesha inaad uga baxdaan hotel ama kireysta ama meel kale balse meesha uun ka taga. Maxaa dhici doona ayaan weydiiyey. Ayadana hadalka ayay igu jirtay waxay igu tiri waxa dhici doona ma ogi balse intaan ogaa ayaan kuu sheegay ee meesha ka bax. Aniga waxaan ku dhahay waxaad ii sheegto waa maqli doonaa. Macasalaamo. Saaxiibadii ayaa si degdeg ah ku soo qabtay. Kadibna waxaan u sheegay inaan sida ugu dhaqsiyaha badan meesha uga baxno. Ayada waxay i weydiinaysay su'aal kasta balse waxaan u sheegay inaan waxba ogeyn laakiin sida ugu dhaqsiyaha badan inaan u baxno. Ayada alaabta ayay gurtay isla markiina waan ka baxnay meesha. Hotel ayaan aadnay. Habeenkaasna xaggaas ayaan seexanay. Subaxdii ku xigtay dariskayga ayaa soo wacay isagoo ii sheegaya gurigii in loo soo dhacay balse waxa la yaab kale waxay ahayd inaan waxba laga xadin. Markii uu sharkanta maqlayna booliska ayuu wacay. Kadibna booliska isla markiiba way soo qabteen qofkii guriga u soo dhacay. Waxaan aadnay booliska waxaana soo ogaanay inuu ahaa Megan saaxiibkeedii hore ee maskaxda ka xanuunsanaa. Wuxuu u soo dhacay guriga isagoo mindi wata wuxuuna markaas qorsheynayay inuu labadeenaba uu na dilo habeenkaas. Markii saaxiibtay waxaas maqashay aad ayay u yaabaneed. Waxa kaliya ay weydiinaysana waxay ahayd sidee bay walaashaa waxaas ku ogaatay. Zoe la'aanteeda habeenkaas labadeenaba inaan dhiman lahayn ayaan u maleynayaa. Qof i aaminaysa ma jirto ama sida ay ku dhacday. Xataa saaxiibtay weli shaki ayaa kaga jiro arrintaas. Aniga laakiin waan ogaa waxa meesha ka dhacay. Walaashay iga yar waxay leedahay talent.